waxa ina sheegaya hooyoy anaga waxaan mas'uul ka nahay shacabka Soomaaliyeed mas'uul ka nahay meel ilaa loo yacday ilaa meesha u dambaysa mas'uul ka nahay waxaan ka xumahay iyadoo barlamaankii la dhisay bishii hore ee ilaa hadeertan maanta nasiib darro maanta u horeysay 70 xildhibaan timid 70 xildhibaan oo timina boqolkiiba waxa waa dadkii joogay dadkii hore dhalinyarada cusub hadda soo gashay in wax loo sheego anigu waxbaan u sheegayaa ani markaa koo barlamaanka soo galay waan xiiseenayo nusacna kama maqnaanaynin barlamaanku waa la maqan yahay dadkii ma joogaan waxaan maqlay hadda xildhibaan leh wax dhibaato ma jiraan xal iyo waxa been waay dhibaato waa jirtaa shacabana matalayo maanta dadka dhagaha korba u hayaan ilaa maanta barlamaanka Soomaaliyeed shirayo dhagaha kor loo hayaa maxaa ka soo bixi doona xeer hoosaad wax lagu kala shaqeeyo oo nidaam noo degsan weeye ani marka waxaan u sheegay xildhibaanada maqan iyo guddoonka labada waxaan rabaa inaan u sheego barlamaanka maqan ee dhalinyarada ah waa la og yahay barlamaanka si lagu soo galay maanta si lagu soo galay waa la og yahay dhalinyarada hadday gobolka ka yimaadeenba shacabka kama dhaqarsoono dhibaatooyinka iyo dibka lagu soo galay barlamaanka is og yihiin anigoo intaas oo dhibaato ay soo maray oo barlamaanka waxaan waa u soo maray maanta inaan shaqeyn waayo korankii buuxin waayo horta sharaf darro waxa u tahay dadkii soo doortay shacabkii soo doortay ay sharaf darro u tahay xildhibaanadaas maanta koranka buuxin waaye dadkii soo doortay ay sharaf darro u tahay tan labaad guddoonka waxa weeye markuu sheegayo waa inuu u soo diraa xildhibaanada misad u soo diraa qof kasta u soo diraa telefoonadooda wada haysta inay ku soo diraan aniga Zaynab waxa la kulmo dadkii dariiqyo xiran oo leeyahay barlamaanka shiray saasan ku imid marka waxa leeyahay dhalinyarada xildhibaanada hadda soo galow annaga joognaa waxayna sheegno wafdi baxayo tagay baydhabo tagay ama galmudug tagayane adiga dantaada ma aha xukuumad baa socoto xildhibaan ma socdo xildhibaanka aad istusinayso gobolka markaa tagaysid barlamaanka dhexdiisa ku metel oo ka hadal dhibaatada heysata xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed waxa haysto ka hadal marka waxa weeye saxaafada aad u mahadsantiin aniga maanta waxaan rabaa caray qabatay waligay inta barlamaanku jiraata ka sanado xildhibaan 70 xildhibaan oo soo xadirta maanta igu horeysay markaan ugu yarnaa 130 120 ay maan jirtay marka dadkii waa weyn xoogaalka meesha waa ka baxeen dhalinyarada Allah idin soo hadeelay waana mahadsantiin la socotaan waxa loo balansanaa inuu barlamaanku soo yimaado maanta bisha ay ka tahay June waxay roosaadka iyo anba ku saabsan waxa saad warka ku qaadateen waxa xidhmi way kooramkii oo safarkii lagu jiray iyo doorashadii la soo galay darteed safarada xildhibaanadu ay kala galeen ay meelaha ku kala maqan yihiin ayuunba kolley sababay de wax kale dhib kale oo jira ma jiro maadaama kooramku xidhmi waayeen in dib loo dhigto oo maalin kale laga dhigtaa ma wax cusub arrintaas sibaad moodeen saxaafadu uga yara boodsan tahay oo balanta dib loo dhigay iyo kooramka xidhmi waayay ma aha de wax la sii naxnaxiyo ama wax la buunbuuniyo maaha soo aragtaan ma dhib baa jira وأنا نسفهنا سوما إيه نسفهنا ده مهم ودخل داون يعني إيه نفهمان